idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu qaybtii 12aad soonka iyo axkaamtiisa waxaa wanaagsan in suxuurta dib loo dhigo saxiixeynka waxaa ku xusan xadiis uu soo wariyay Anas bin Maalik wuxuu nabiga sallallahu calayhi wasallam uu yiri waa in aad suxuurtaan maxaa yeelay suxuurtu waa barako saxiixeynka waxaa ku xusan in Zayd bin Thabit uu yiri waxaa la suxuurnay rasuulullaahi kadibna waxaanu istaagnay salaada waxaa la weydiiyay imisa u dhaxaysa suxuurtiina iyo xilliga aad u istaagtaan salaada wuxuu yiri qadar 50 aayadood la akhrinayo saxiix muslim waxaa ku xusan xadiis uu soo wariyay Ammar bin al-Caas wuxuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu yiri soonka islaamka iyo soonka ahli kitaabka waxaa u dhaxeeya suxuurta yacni ahli kitaabka ma suxuuran jirin